بسم الله الرحمن الرحيم magacaygu waa Ridwaan Maxamed oo degan dalka Germany xaaskayga oo labadii Ramadaan ay u dambeeyay midna uur lahayd midna nuujinaysay hadda markay siri qaleena ay uur leedahay maxaa ku waajibaya dumarka uur kale iyo dumarka nuujinaya caruurta nuujinaya hadii ay soonku soo galo oo iska afuri karaan شريعة الرخصة حديث كأنس بن مالك الكعبي عند أهل السنن بالنبي صلى الله عليه وسلم كيري إلى هاي صون كوحو كدت شيء هوان تأور كله يمد النوجنيس مركب ويسكافوري كران هذا خطر دريمانا إن يواجب كل نقطة دعك تأفرك أما المها بالله بقى لازم بيكون نقطة مركب إني أفران وإن الصومان بابا واحد نقطة يسامرك إثم يدم بالنقطة كو طيب وي أفران محل جربا مركي أفران وحال جربا جمهور السيقبان علماء بدن كوت سيقبان وحال جربا وحي كتجي إن يديب كسوق الليها مركي كان سيلان مالمه كتجي أور كلاهيد أما نوتشينيسي وين يديب كسوق الليس كل بسيدي أفضودات كل بسيدي أفضودات أو قليسو تاوامت حدي أي كري ويدو صونكي وابطي سند وي نوجينيسا سند وا اور way dheeraatay way soomi kari weyd maxaan sameeynaa markaa shariicadan wax uga raadinaynaa oo markaa waxaan leenahay madhab waxa jira saxaabada qaar kamida qabeen oo Abdullah ibn Abbas ka asaxay Abdullah ibn Umarna ka asaxay al-Imam Ishaq ibn Rahawiyana uu ku tagay oo dhahaya cuntay bixinaysa haweentu markay u afurto ilmaha dartii ama ay u afurto markay uur leedahay ama nuujinayso cuntay bixinaysa bay qabaan hadii marka ay kari weydo inay qallayso muddadu ay dheeraato maalmuhu ku bataan oo tabar u weydo marka waxaan leenahay binaan ala madhhabi ba'd as-sahaba wa ba'd al-a'imma marka cuntaha bixiso waase goormo waa markay kari weydo inay qallayso soonkuna ku bato رخصة الشرعية بأمر كان الله الكرايو لو رادين كرا والله أعلم.